dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان ardayda qiimaha leh meel kastoo ay ku sugan yihiin xilli iyo amin kasta oo ay joogaanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mar kale iyo habtaminteennii casriga ahayd ee duruusta magacaygu waa maxamed axmed xuseen casharkeennii maamahaaba halkii inooga sii socda waxay noogu joogtay layliska ama ka shaqaynta ah inaad adigu ka warceliso adiga oo maahmaah walba ku beegaya tii ku saxda ahayd waxaan jeclahay inaad si fiican uga shaqaysay anoo dul maraya wixii kaa qaldanna aad sixi doonto ayaan doonayaa inaan in yar idin yaro dul maro halkay inoogu joogtay aad ila soco maamaada koobaad waxa weeyaan ninku arkaya qaybtan halkan ku jirta ee 1 2 3 4 5 6 7 ka kooban ayaa waxaad ku beegaysaa 7da mid walba tii ku saxda ahayd dabeetana waxay odhanaysaa ta koobaad halkan aan u samaysanayaa tirsiin ama numbers baan u samaysanayaa ama halkan aan tiro u samaysanayaa 1 2 3 4 5 6 toddobadaas tireen samaystay ayaan mid walba ku beegayaa tii ku saxda ahayd 1 ninku arkaya looma sara joogsado dabeetana waa 1 taasay sax ku tahay ninku arkaya looma sara joogsado ta labaad laba qaawani isma qaado halkan inooga baadh laba qaawani isma qaado tii labaadna waa taa ta saddexaad fadhi iyo fuud iyo cubeed la isla waa fadhi iyo fuud iyo cubeed la isla waa wataa tii saddexaadna haye habar fadhida lagdini waxuga fudud habar fadhida lagdini waxuga fudud waa taa afraad habar fadhida lagdini waxuga fudud waa taa tii afraadna halkaa aynu ku aragnay taasaan ku beegay tashanaad waxay odhanaysaa faqu ama faq fagaaraha wax kasta hoos loo dhigaa marka dambe uu soo shaabaxo fagaaruhu yimaadaa taasaa sax ku ah haye ta lixaad isla doono dameer isku halayn bay hooyadeed xagga dambe ama dabada uga nuugtaa waa ta lixaad haye ta toddobaad oo midhiya midha inoo soo hadhay inta nabadi joogtaa ninba laba nin leegyahay inta nabadi joogtaa ninba laba nin leegyahay waxaan jecelahay inaad sidaa uga soo shaqaysay wixii kaa qaldan adaa dhammaystiranaya idam allah hadduu ilaahay idha maahmaaheenyunba arday weli inoo sii socda kamaynaan gudbin oo halaydii baynu ku jirnaa labaalaydii baa inoo soo socota sidaasaa loo soconayaa 3 le 4 le ilaa iyo inta aynu waxa laynoogu talagalay aynu dhiganaynay buugga inoogu qoran maahmaaha haleeya maahmaaho haleeya halay waxa looga jeedaa waa maahmaaha hal dhud ka kooban ama dhud keliyaalaha ah dhud keliyaale waxaan uga jeedaa macnaheedu hal meeris maahmaah ka kooban weeyaan waxaa jira mid labaalaya oo tusaale ahaan kale haddaan ku dhaahdo laba siday wuxuu og yihiin waxba uma sheegaan eeg waa maahmaah labaalaya oo waxaa la yidhaha gabadh ka umulisa iyo nin reeru weyni oo curadi siduu wuxuu og yahay uma sheego taasi waa labaali baa la dhaha mid 3 leeyaa jirto 4 leeyaa jirta bal hadba wixii bay naga gaarsiiyo waynu wadi doonaa laakiin imika maanta casharkaynu dhiganaynaa waxa weeyaan waa maahmaaha hal dhud ka kooban waay waxaan jecelahay inaad sharxi karto waa maxay maahmaahay oo casharkii hore ku soo dhiganay
waxaan jecelahay inaad sharxi doonto waa maxay murtiye oon xaggii hore kusoo sheegnay waxaan jecelahay inaad sharxi doonto murtiye mahmaa maxay ku kala duwan yihiin waxaan jeclahay inaad sharxi karto ood awood u leedahay inaad sharaxdo hadna la adeegsadaa mahmaada waay mahmaada koobaad waxay odhanaysaa ama afeef hore lahow ama adkaysi dambe ama afeef hore lahow ama adkaysi dambe mahmaa kaloo aaday isugu dhow yihiin baa waxay tidhaahdaa aqalkaaga hortiina ood baa la dhigtaa ereygaaga hortiina afeef baa ayaa la dhigtaa mahmaadani waa mahmaah aada u qiimo badan waxay gudbinaysaa haddii wax qaldan aad samayso wax qaldan haddii aad samayso cawaaqib xumada ama dhibaatada kaaga soo noqota adigoo og wixii qaldanaa markii aad samaynayso ogoo ku kalsoonaa dhibaatada kaaga soo noqota u adkayso dhibaatada kaaga soo noqota u adkayso oo laba ha isku darsanin inaad hebel ku qaldanto adigoo og inaad ku qaldanto oo qaladkii markuu ka falceliyey oo waxaad dhibsato uu kaaga falceliyey aad haddana cabato labadaasi waad kala ilaalinaysaa bal waay waxaa looga jeedaa mahmaahdan haddii marka hore aad gardarooto bal adugu eeg ama aad gardarro samayso waxaa looga jeedaa mahmaahdan halmuceedka halkaas ka bilaabmaya ama ujeeddadii haddii marka hore aad gardarro samayso waa adigee haddii marka hore aad gardarro samayso ood og tahay gardarrada waa inaad u adkaysataa haye talo maxaa loo adkaysanayaa waxa aad kala kulantid waxa kaaga soo noqda qaladkaa dee waxa aad kala kulantid qalad baad samaysay hebel baad ku qaldantay qaladkii waxa kaaga soo noqday waxaana jeclaysan waa inaad dabadeetana u adkaysatay ileen qaladkii markii aad samaynaysay waad ogeyda adeer soo ilama socotid ma aha haddaba ma aha maxaa lagaaga digaya ma aha inuu qofku isku darsado xadgudub iyo cabasho inuu isku darsado xadgudub iyo cabasho oo waa halkay soomaalidu ka tiraahdo adeer ha noqonin hasha geela cuntee cabaada hasha geela cunta oo intaa fajaaso ku dhuftay taa qaniinso marka iyada dubka la maroojiyo qaylo ka wadha ama qaylo kee kacda ha noqonin taa waxaan jeclay arday mahmaahda inaad si fiican u fahantay ka rogo haddana saar ama halkii aan ka sii socdo doqoni qiiq kama kacdee daamankay meermeerisaa doqoni qiiq kama kacdee daamankay meermeerisaa waxaa looga jeedaa qofku haddii uu doqon yahay oonu fariid ahayn dhiifoon oo waayaha nolosha wax badan ka darsay ama wax badan ka og dhibaato kasta oo soo marta cashar kama bartee wuu sii dugaashadaayo oo wuu sii dugsadaayo dhibaatadii iyada oo sidiia ayuunbay ku soo noqnoqotaa dhibaatadii unbaa ku soo noqnoqota oo cashar kama barto isma yidhaahdo newtani waa tii shalay ku soo martee maanta ka sii gaashaamo macnihii qofkaasi ma idhaahdo oo dhibaatadu iyadoo shaadhkii gashan ama iyadoo isla dhibaatadii oo xilligii dhacday oo tii la garanaya ayuunbay qofka soo martay haddana way ku soo martay haddana way ku soo martay haddana way ku soo martay macnihii markaasaa la yidhi doqontu qiiqa kama kacdee daamankay meermeerisaa docday kaa jirtaa bay dhaxani kaa dishaa waa hees uu qaado xasan aadan samatar ayay ku jirtaa markaa wuxuu yidhi doqoni qiiq kama kacdee daamankay meermeerisaa waxaa looga jeedaa qofka aan garaadka badnayn garaadka macnihii garashada iyo caqliga qofka waxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa qofka garaadka badnayn ama garaadka badan lahayn kama tashado kama tashado waxyeelada ku soo noqnoqotay waanigii kuu sheegay macnihii dhibaatadu qofku way soo mari kartaa laakiin isla dhibaatadii hadday mar labaad ku soo marto dee waxaad noqonaysaa un indhoola dharbaaxa gadaasheed buu gabadaa indhooluhu markay ku dhacdo ayuunbuu gabadaayo ma arkay macnihii waa inaad dhibaato kastoo ku soo marta aad cashar ka barataa iminka tusaale ahaan kale imtixaankii hore haddaad yaro hooseysay imtixaankan labaad
dee ha hoosaynin waayo sibaad wax u diyaarisay sibaad wax u soo akhriday sibaad u diyaargarowday sibaad wax u qaybaysay dabadeetana maxsuulkii intaasoo la isku soo geeyay inaad yaro hoosaysa buu noqdo dee doorka dambe bedel wadadii oo doorka dambe oo cashar ka baradee wixii markii hore ku soo maray haddaad laakiin ka baran weydo dee doqoniqii kama kacdee daamankay meermeerisaabaa lagugu mahmaahi doonaa haddaba bal u fiirso haddaba marka uu dhibta la kulmo ayaa uu xasuustaa rafaad waa dhibaato rafaadkii gaadhay unbuu xasuustaa un way ku soo noqotay dhibaatadii kale unbay xasuusisaa un laakiin ka qaashaaro ka gaashaamo marna maskaxdiisa yari ma keento halkii uu haddaba xal ka gaadhi lahaa muxuu adeegsadaa inuu ku cataaba talow halkii uu xal ka gaadhi lahaa muxuu sameeyaa talow waxa uu ku qaataa murugo ma aha murugo inaad ku qaadato waa inaad ficilkaga falceliso ood beddeshadee si aanay dhibaatadaas halkii adigoo fadhiya aanay mar labaad kugu soo noqon dabeetana wuxuu ku qaataa murugo waxa uu ku qaataa murugo madax adayga iyo xanuun aan daawo lahayn macni wuxuu uga jeedaa un dhibaatadu isagoo halkiisii ayuunbay ku soo noqnoqotaa way ku soo noqnoqotaan caqligiisa iyo kasmadiisa iyo garashadiisuna ma keento si kale bal oo dhibaatadani dee macnihii dhinac kale bal uga wareeg waxaan jeclahay arday inaad maahmaadaa si fiican aada u garatay maahmaada ku xigtaynu bilaabaynaa idam allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo hadal nin si u yidhi ninna si u qaaday waxaa looga jeedaa af soomaaliga inaynu ku hadallaa wuu laaga badan yahay oo wuu ujeedooyin badan yahay oo wuu macnayaal badan yahay oo waata soomaalidu tidhaahda hadal waa margi oo hadba qofku dhinacu halku ka joogo waa ku sax maanta haddaan ku idhaahdo wallaahi arrinkaasi caqli fayow baad ku talisay ayaad maanta ku talaysay hebelow dee waa laba un inuu ku idhaahdo waa runo wallaahi caqli fayow baan ku fikrayo arrintaa aan ku darsay midna wuxuu ka odhanayaa haddaba markii hore aan waallaa ilan waxaad iiga jeedaa markii hore aad waallayde dee adeer markaad u fiirsata miyaad tiri markii hore aad waallay laakiin imika miirqa baad ku talaysay waa maya waa muraayad hadba dhinacaad ka istaagta baad isku arkayso oo sidii loo qaataaba waa ku sax waana sababta had iyo jeeraale loo yidhi wixii laguu sheego waxaad u turjumataa dhan walba xagga wanaagsan diinta taana ina faraysa marka waxaa la yidhi hadal nin si u yidhi ninna si u qaaday oo laga yaabaa iyadoo oo geed la wada fadhiyo hadal uu hebel yidhi in saddex qof oo halkaa fadhiya oo geedka shirkaa fadhiya in saddexda qofba ay si haboo kala gedisaan ama hab kala gedisan ay u kala fahmaan ayaa laga yaabaa maahmaahdani waxay sheegaysaa haddaba bal aad ila soco ardayo maahmaahdani waxay sheegaysaa inay dadka qaarkood si kale u fahmaan inay si kale u fahmaan hadal uu qof yidhi inay si kale u fahmaan oo anigii idiin sheego haddii meel geed iyadoo la fadhiyo nin hadal yidhaahdo laga yaabaa inaan laysku wada faham noqono qof waliba uu hab kale ama nooc kale uu u fahmo hadalkii waxaanay la macno tahay maahmaahda tidhaahda waa tii imika aan kuu sheegay maahmaahda tidhaahda hadal waa margi maahmaahda tidhaahda hadal waa margi waay maahmaahdaana inaad si fiican aada u fahanteen ayaan ardayay jeclahay waay ta ku xigta oo afraad waynu bilaabaynaa ardayay adoo ila socda waxaynu odhanaysaa gari laba nin kama wada qosliso
kama wada qosliso macnihii waxa looga jeedaa gartu waa arrin u dhaxaysa laba qof laba qolo laba macnihii reer laba group waxa weyn waa arrin u dhaxaysa oo isku haystaan oo kana tirsanayo wax ka tirsanayo qoladan kana wax ka tirsanayo qoladan oo dabeetana jiq la isku yahay oo qof waliba dhankiisa marka laga joogo uu saxsan yahay oo ka kalena uu saxsan yahay dabeetana hadii jeeraale gartaa waxa loo geystaa cid kale oo labadan ka madax bannaan baa loo geystaa oo lagu tuhmayay inay aqli iyo garasho u leedahay iyo waayo aragnimo sida arrimaha garta loo dhax galo way haddaba gartaa marka la qaado haddii si cadaalad loo qaado dee qofna wuu qaldan yahay qofna wuu saxsan yahay qofna wuu qaldan yahay qofna wuu saxsan yahay gartaasi haddaba haddii si cadaalad u dhacdo qofkii saxsanaa waa farxayaa waa ka guulaystay goolka dhaliyay kii qaldanaana waa ka murugada meesha kala kacaya ee guuldarrada meesha kala kacaya waa sababta loo yiri gartu laba nin oo laba qof oo isaya kama wada qoslinaysa waxa qosliyo farxaya kii garta helay way haddii la doono aad ila soco haddii la doono halkaa la soco arday wuxuu yidhi haddii la doono in loo gar qaado ama la kala saaro laba nin oo arrin isku haya hee mid ayaa garta hela dee garta ileen looma sinaanaye mid baa garta hela mid ayaa garta hela oo toosnaada saxsanaada midna waa laga gar helaayo waa laga gar helaa oo waa uu qaldan yahay eeg wariya eeg arday la soco ka farxaya mar walba waa ka guulaystay ee garta helay ka murugoonaya laga guulaystayna ka murugoonaya inta badan meesha murugada kala tagana waa ka laga guulaystay maahmaahdu haddaba maahmaahdu waxa ay sheegaysaa in aanay go'aanka ku wada farxin labada ruux ee ismaandhaafsan ishaya go'aanka halkaa ka soo baxay uma wada sinno oo kuma wada farxayaan labada ruux ee ismaandhaafsan ama ishaya ee ismaandhaafku uu ka dhaxeeyo ee ishaya aad baad ila socotaa baan filaya oo had iyo jeeraale waxa guulaystay kii garta hela waaya maahmaada ku xigtaa waxayna odhanaysaa shanaad arday waxayna odhanaysaa waan baahanahay bahal looma cuno ama looma bahala cuno ama bakti looma cuno waa meelaha qaar baad ku arki doontaa iyadoo loo leeyahay waan baahanahay bakti looma cuno ama waan baahanahay looma bahala cuno waa isla halkii macnihii waxaa looga jeedaa qofku inuu mar walba daciif iska dhigo waa lagu qurux badan yahay haddii culays fara badan uu dareemo adduunku waa ballaadhan yahay fikirku waa ballaadhan yahay masalada lagu furfuri kare ee garaadkaaga ka soo baxaysa way fara badan tahay inta badan waa inaad samaysaa xal waa inaad mar walba aad raadisaa waa inaanad dhulka isdhigin oonad boodhka aanad macnihii aanad ku galgalan maahmaahdu waxa ay sheegaysaa in aan nafta loo jilcin bal halkaa u fiirseeg halkaa u fiirso inaan nafta waxay sheegaysaa maxay talow waxay sheegaysaa inaan nafta loo jilcinin dhibaatada inaan nafta loo jilcinin dhibaatada ama dhibta haysata iyo in aan mar walba xaragada laga tegin iyo sharafta qofnimo inaan laga tegin ood mar walba isku daydo inaad adiga oo wanaagsan aad caqli kale aad keento dhibaatadan aad kaga baxdo qofku ma aha in uu naftiisa u duleeyo dhibaato la soo daristay oo uu xalka ama xal uu ka gaari karo qofku xal uu gaari karaa dhibaatadaana uu ka bixi karaa hadduu dadaalkeeda iyo tacabkeeda
iyo samirkeeda uu la yimaado laakiin aad dhigato ood halkaa baroosinka ku aasato ood gaadhiga ku baktiisato waa laga qurux badan yahay sharaftaadana way dhimanaysaa ardayga casharkeenu maanta halkaasuu ku kooban yahay hadduu ilaahay idhaahdo sharax mahmaahyadan adaas ka soo shaqaynaya buuggaagaad kaga shaqaynaysaa ta koobaad waxay ka odhanaysaa miskiin baa miskiin la fuulo leh ta labaad waxay ka odhanaysaa halli baa xarkaysaa ma godlato ta saddexaad waxay ka odhanaysaa uur hooye ay xashada laga bartaa ta afraad waxay ka odhanaysaa 5 nin oo isku talaa way xoolo badiyaan waxaan u jeedaa 5 nin oo isku talaa 5 shaa ka godo 5 nin oo isku kala talaana 5 shaa ka goda ta shanaadna waxay ka odhanaysaa soo joog ninkii laga waayo soo jiifsaa laga helaa adigaa isku dayaya buuggaagaad kaga shaqaynaysaa hadduu ilaahay idhaa ilaahayna ha idinku astro dhibaatooyinkan iyo